android menus si loo sameeyo qaarna waa built in qaarna waa custom dama macnaheedu caawa waa si dashboard ko kale oo markii maadooyinkan oo web design ka sameeynaayo dashboard ka menus ko wato si custom ko kale kuwa waa la sameyn karaa laakiin kuwa built in inta badan fiirneena oo android ga ku dhisan ee la socda android menus sidoo kale waxaan rabnaa aragno controlka la yiraahdo web view controlkan waa control kamid ah controlada android uu leeyahay web view ga wuxuu ku suurtagelinayaa website dhan oo dhameystiran oo shaqeynaya in android ka soo dhex muujiso hal control waay dhulka dhan ku fadhiisinay danne URL website ka oo sheegay soo website ka ugu dhan meesha ka soo muuqanaa website ka responsive yahay sida mobile app ama u eekaana buttonisku waa la shaqo riix kartaa meelaha textbook sida qaar waa buuxin kartaa adoo HTML isticmaalay control kana mobile app develop garan kartaa marka sida qaabka u shaqeeyo waa arkayna insha Allah aan ka bilaawno menuska inta badan menus marka la hadlayo faahfaahintiin salaano kala software ka isticmaaleen oo kana wuxuu leeyahay menus kan uu leeyahay android laakiin menus sidaan loo matixi karo oo shaashada mar walba limitation leedahay dhinaca oo widthka ah si loo matixi karo marka waxa la sameeyaa meelaha qaar la gelinaa oo toggle laga dhigaa dadna marka taawado drop down soo daadanaay qaarkood control qaar marka la riixay soo baxay ayagoo pop up ah mid walba magacu leeyahay waa arkeenaa salaano saddex nooc arki doona insha Allah dawlad real ka noqdo kan u horeeyo waxa leenahay ay dhaafay options menu inta badan wuxuu eegaya kan noocaan oo kala application ka marka fiiriso qaybta sare wuxuu ku leeyahay saddex dhibcood geeska ku yaal marka taabato drop down soo daadanayo kaas inta badan waxa loo yaqaan option menu inta badan waxa la wuxuu xiriir la leeyahay form ko dhan halkii form wuxuu yeelan karaa option menu qaybta sare inta badan weeyaan meesha saddex dhinac ama inta application ku arkaa marka taabato drop down kana soo daadanayo kaas marka waxa loo yaqaan option menu waxa jira sidoo kale mid kale context menu waa si xawad salaano control gooni ah ama sawir ama button ama wax kala ah oo control kamid ah waxa u yeelaysaa menu gooni salaano sawirka markii la qabto pop up yirisa sawirka soo korbaxay oo options ku qoran share crop wax noocaas oo kale send delete wax noocaas oo kale oo yar oo box ah soo marka waxa leeyahay menuskaas wuxuu xiriir la leeyahay controlkaas xiriir leeyahay waxa laga yaabaa laba controls agtaalo kan marka qabato pop up ka soo baxay kan marka qabato waxba kama soo baxay soo kaas waxa loo yaqaan marka context menu marka definition kiisa waxa leeyahay marka context menu inta badan wuxuu xiriir la leeyahay wuxuu ku soo muujiyaa information la xiriira specific control gooni ah halka options ka leenahay wuxuu soo muujiyaa information related to activity ama current activity la form ko dhan waxa uu dambeeyay mid kale oo pop up menu ay dhahaan pop up menu inta badan wuxuu la mid yahay dhinaca muuqaalka context menu laakiin wuxuu ka fiicay asiga context menu mar walba wuxuu baahan registration control ka la rabo inuu item kan yeesho registration aw sameeyay halka pop up ka just code ka qorisa leedahay show xilliga oo baata leedahay bas dialogue soo muuji saddexdoodana saddex example ka arki doona dureela ka noqdo iyo web view ga waxaan ka bilaabaynaa marka kan u horeey qaabka loo implement gareeyo inta badan marka ka hadleeno option menu waa ka bilaawad qaabka loo implement gareeyo option menu android wuxuu luqadaha kale kaga duwan yahay inta badan waxyaalaha la isticmaalayo dhan waa building waa diyaarsan yihiin way dhisan yihiin just waa isticmaalaysaa oo kaliya ima inaad isticmaasho method ima inaad isticmaasho functions uu leeyahay already la soo diyaariyay salaam option menu si aan implement gareeyo waxa u baahanahay in laba option ama laba method inaad isticmaalo methodka koowaad sida magaca ka muuqato waxa la dhahaa on create option menu laakiin steps aan ka dhigno si qurux badan saan u fahanno steps waxa leenahay option menu steps salaam steebada loo baahan yahay si aad option menu u samayso koo waxa sameynaynaa file xml aan samaysanayna kaas oo aan ku list gareeyna dhamaan items ka aan u baahanahay inuu ka soo muuqdo hadhood salaamka markii la taabto itemka drop down soo daadana items ka ku qoran file separate aan diyaarsanayna oo items ka ku list gareynayna koo stepka koowaad stepka labaad waxaan override ku sameynaynaa method la yiraahdo override macnaheedu waxa weeye noogu soo dar method la yiraahdo on create options menu
function built-in ah function kan muxuu qabanaa wuxuu soo load gareynaa faylka XML ka ah ee aan step 1 ku sameynay faylka itemska uu soo load gareynaa خلاص waa labadaas step jaa already option menu waa haysataa application kadib run garay saddex dhibcaad kore ka soo bixisa dan marka taabato XML kii options kii wixii itemska ku qorta ka soo baxaya meesha kadib waxaan u baahanahay hal step u dambeeyo oo ah inaan mar labaad haddana override ku sameyno method kale oo loo yaqaan on item on option options item method kan muxuu qabtaa afsax method kan muxuu qabtaa ya wuxuu dhigeysanaa taabashada ama select kala dooranayo itemska salaamka meesha 3 4 5 item ay u taalo waxaan rabaa inaan programming kan kale which one la doorto item 1 ma la doorto 2 ma la doorto 3 ma la doorto so method kan ay caawinayo marka method ka labaad خلاص انت سو كفوديا marka waxaan ka bilaabanaa step ka koowaad system ka tagayna projectigeena file sameysanaynaa oo XML ah magaca la bixinaa dan form walbo aan ugu talagalnay inuu menu yeeshaan tagayna waxaan override ku sameynaynaa method loo yaqaan on create option menu dan code yaro halleena qorayna oo aan ku soo load gareynayno file-kii aan sameysanay okay tusaale isla projectiga hore oo my SQLite aan ku practicenin wuxuu noo lahaa form kan la yiraahdo main this form aan rabnaa inuu yeeshto option menu step kooda waxa waaye marka hore inaan sameeyno XML file mar walba aan daro XML file aan sameeyno macnaheedu waxa waaye source-ga tagaysa resource-ga waxaan imaanaa resource folder menu la dhawa inaan meeshaan ka helaa hadii aan ka wayno dhib ma laha waan sameeynayna folder menu la sameeynayna folderkaas menu waxa loogu talagalay wixii menus failal ah in lagu store gareeyo sida kan sawirada loogu talagalay kana design-ka loogu talagalay si la mid ah folder waxaan sameysanaynaa menu la dhaho then menus-kaas wuxuu hayn doonaa system-keena oo dhan ilaa waxa laga yaabaa 7 form inuu system-ka ka kooban yahay form walbana uu menu gooni leeyahay soo failashiisa meesha uu store gareynaa naqanay soo waxay imaanayna marka uu horeys maadaama uu yahay resource waxaa leenahay new folder is samee leenahay this one waa direct marna waa file marna waa folder oo director sometimes waxa sameyn kartaa file is samee adiga taa file then dialogue yara ku soo baxay waxa laga rabaa file-kaaga magaciisa file-ka la sameyn lahaa magaciisa salaamka inuu yahay menu weyn oo folder main iska leeyahay xagee la geynaa marka nooca file-kan noocee waayo ma file designer ma file color so file-kan waxa leeyahay waa file menu ah inta ka dooranaa at the time a file menu dooratid director-ka la geyn doono wuxuu noqonaa menu so hadduu menu meeshaas ku jirin software wuxuu ku sameynaa marka hore folder then file-kii sameynaa folder-kaas u geynaa inta anaga laba jeer aan marna folder sameeyay dan kadib aan soo naqaleynaa file sameeyay file sameeyaa leeyahay folder hebel ii geey oo menu ah file-ka markuu waa asaas sameynaa automatic dan uu geynaa خلاص يا زايد مزوج انت نكون قال الماركه يعني يا هاي تيم كان الماركه سان لما اذا مسكوا الى علينا قناه مركه لكن تيم بس كان قصب اوكي فينيش علينا مركه أي اللي حد حسكو تيدون هنا إلى عليا. أوكي. ديزاين كانوا صوب حياة مركب فايل كنا. سين عالي ديزاين كله اللي مديها. قيتنا حالينا نوك القيبي سبليت. هذه ماشي عارفين التيم كجدال. روت كأنت بدن فايل كان حالينا ومنيو لا أوت ما ريلاتيف ما لينر ما ومنيو. صوته وفولو كمنيو كوجرا. فايل منيو نوم طلع جلواي. أنت بدن ماشي عم أكتف كأ إن استعمال حل الأيتمز. halkii item bo sidaas u digleer gareynayna dan item walba wuxuu yeelanaa title macnaha warka textiga oo warkii ka soo bixi lahaa meesha ka soo muuqan lahaa salaano ko title ku horeeyay aan dhaano search
meeshaan daafin design-ka inta waxaan ugu soo qornaa marka search so items marka waa badinayna kulama aan badino uu sii badnaana kulama yareena uu yaraana item walba waa inuu yeeshaa meel ka xirno item walba waa inuu leeyahay unique ID si hadhowta markii aan isticmaalayno selected item-ka oo aan dhageysanayno waxaan base ugu dhigaynaa ID-ga so waa inaan helnaa marka item walba ID unique ah waxaa leenahay main search sidaasaan ku soconaynaa marka 2 ama 3 ku daraynaa oo items ah si meesha lagu qurux badnaato kan waxaa leen soo qaado oo kale settings ID waxaan ugu dhigaa main 2 xabaa meesha ku haysanaa hadda ugu dambeyn 1 xabaa ku soo qatimaynaa exceed aan leenahay salaam ID-giisuna waxaan ka dhigaynaa asigana exceed okay step koowaad failkii waan diyaarsanay step 1 waxaan lahaa fail diyaar XML kaasoo ay ku list gareynaysid dhammaan wixii item ah so all itemsken saddexan ugu baahannahay saddexda waa samaysanay step kalaad waxaa waaye inaan ku soo darsano method loo yaqaano on create option menu methodkan muxuu qabanaa wuxuu soo load gareynaa failkii aan step 1 ku sameynay simple waxaan raadinaynaa fail aan ugu talagalnay inuu menu yeeshto fail ama formka ugu talagashay inuu yeeshto menus hadda waxaan leenahay mainka waxaan rabnaa inuu menu yeeshto meeshaan koodkii horaan ugu qornaa dib ma leh waxaan raadinaynaa meel bannaan oo aan function gudihiis ahayn laakiin galaaska kama baxeen salaamo kale kan galaaska meesha ku xirmaya waaye so inta kama meeshaan oo kale waxaa kusoo darsanaa marka methodka mainka joogaa so adiga markaas aad form alla formka rabta ku shaqayn kartaa dib ma leh waxaan kusoo darsanayaa method la yidhaahdo on create option menu akas methodkan method already systemka ku jiray waa just an override ku sameynaa override macnaheedu waxaa waaye methodka already by default u shaqaynaya hadda waxaan rabaa markas inaan change ku sameeyo sidii hore oo default u shaqaynaya inaan xeer ka bedelo inaan shaqo u dirsado hadda baadigiis waa iska empty waxba kuma jira laakiin waxaan rabaa inaan shaqo u dirsado maxaan sameynaa waxaa soo load gareynaa XML file-kayga soo load gareynaa bas intaasaa ka rabaa bas haddana method waxaa jira yidhahdo get menu inflate oo loogu talagalabo in dhammaan feelasha noocaas oo kale ah oo XML ah inaan Java ugu soo bedelno methodkan Android la socdaa so get menu inflate then functionkaas inflate aan isticmaalaa laba parameter oo qaataa parameterkan waa baadka xaguu yaalaa failka soo load gareynaa xaguu yaalaa wuxuu noo yaalaa leenahay resource menu then magaca waxaa leenahay waa main menu waa mid kada aan sameynayna anaga oo kana isoo load gareeyaan leenahay maximum parameterka labaad waxaa laga rabaa galaaska menu objectigiisa laga rabaa menu qolada Android waxay sameeysaa marka functionka oo aad override ku sameysay ee ku soo raacisayba diyaaru ku yahay hadduu meeshan Axmed iyo Axmed ka dhigado caasho ka dhigo soo isku ilaahay marka wax jeebkaaga ha ka keenin خلاص haddii aan garanaa systemkan jaa menu leeyahay inta soo badan tahay step koowaad fail samee dan halkan functionkan override ku sameeyo oo soo darsada bas one line of code aqra bas waan ku sheegay xaguu yaalaa file-ka iyo object-ka خلاص dan waan garaneynaa marka okay sidaa wajida marka hore normal lahayn hadda waxaan noo soo siiyay 3 dhibcood waa toggle-ka caadiga ah oo menus-ka u wato soo markaan ku dhufano waxaan noo soo baxaya marka failkii items aan ku list gareyn oo search iyo setting exceed ahaa waa failkii kan ahaa items aan ku qornay kan ah si simple meesha ugu soo baxay marka soo mid kaarna aan click sii karnaa mid kaarna ku dhufan karnaa laakiin weli nooma program sana oo wana soo muuqday mesela loo abuuray oo create la sameeyay laakiin weli taabashadiisa ma programin soo si aan u programin taabashadiisa marka waxaan naqanay methodka saddexaad inaan isticmaalo step 3 oo ah inaan dhageysano bal which item la doorto si aan u fudud yahay
waxaan tegaynaa mainka meesha functionka noogu qornaa hoostiisaan imaanaynaa function kale kusoo daraynaa ilaa function kale override ku sameynaa la functionka waxaa la dhahaa on option item selected u diyaarsan yahay sigana item walbo la doorto operation systemka wuxuu sameynaa itemka sidoo ku shuba soo marka waxaan ka dhex raadinaynaa itemka ID-ga aan u samaysanay waxaan leenahay shaxaan samaysanaynaa shax waxaan sameynaa waxaan leenahay haddii lacalla la taabto ilaa codeka waa in la qoraa intaan la rangareyn ka hor soo shaxaan diyaarsanaynaa marka waxaan leenahay lacalla haddii itemkan get ID function ila isticmaalena oo loogu talagalay itemka ID-giisa inaan soo helno hadduu la mid noqdo r.id.main search salaam waa itemka koowaad kooda qornay markaas wixii aad u talagasho oo logic ah oo haddii search la taabto meeshaan ku qoraysaa tusaale marka shaxda waa sii wadeena oo ilaa probability inta wiji uu noqon karo menuskiina sii wadeena waxa leenahay haddii haddana itemska get item ID oo la mid noqdo r.id.main setting kan u dambeeyna wuxuu noqon doonaa asigana kan oo kale soomaa exceedka main exceed saddexdaba waa kan marka haddii lacala exceedka la taabto wixii logica ugu talagashay inta ku qor oo code ah haddii settingka la taabto haddii searchga la taabto أنا جست حسكر إن هذا توسطه سيانو وقالوا متكلا تابتي حاليا search item انتو تاجنانا جبترك waa jabtarka toddobaad waxaan lahaa marka maadaama jabtarka afraad oo database SQL ay tahay isbuuc qaateen haddana kiima SQL ka ku xijin faraaq waxyar gaabsi toddobaad u booda marka toddobaad lixaad shanaad oo soo noqonaa markaas maadaama midka PHP uu badan yahay koodkiisa kan waxaa la doortay exit kan oo kale logic ku qori karnaa salaam ku systemka laga baxo waxaa leenahay main oo formkan hadda furan ah .this .finish close macnaa xir lacala digsiga taato logicadana ku qorayna leenahay formka oo mainka xir simple formka mainka waa midka hadda aan joogno aan ku shaqeynayno formka lama haysan anaga haddii itemka koowaad la doorto soo waxaan la doonaa search la taabtay setting la taabtay saas ku soconaynaa saddexda step sidaas aan ku dhameynay functionkii ugu dambeeyay oo aan ku dhageysanayna haddii item la doorto soo hadda marka haddii la taabto jawaabaan helaynaa tusaale kale searchga haddii la taabto soo ila searchga la taabto haddii la taabto kan kale settingka haddii midka u dambeeya exceedka ane systemka dhan asxirayo sababtoo kaas logic code aan ku qornaa systemka inuu asxiro buugaagta qaar ama applicationada qaar waxaa ku arkaysaa iconka sometimes qoraalka menuska banaanku joogaa marka qaarkood banaanku joogaa oo dhammaantood gudaha ku jiraan waxaa laga yaabaa shan camal inay laba ama hal banaanka la geynaa kuwa kale gudaha ku jiraan sidaas u isticmaalayna hadda fiir dhammaantood gudaha ku jiraan دارنا بناك أصوب حكرنا هل أم الله أم سدح متكمدة وماش أنا كيني كرنا وفودي أسيجنا وحنتجينا فيل كنا XML كا ومنيو كا which item أو بانتا إنا بناك كينش هذا سدح الجودي بجيران حالينا تاي سيرج كتصالانو كله وحقدر هنا وحلي هذا show as action attribute كان ده نوع قاطع سدح بارامتر تصالانو كام سدح value if الروم معناها حواي حديد صلاحان وكله وماشي سبيس جرو بنانك هو بح سو سيداتو بنانك وآدو كله واحد جرا ممر قارقود إلا استعماله always معناه حوا هذا يجر بنانك جي بوس وعريري مرة والله بنانك هجر يسون قداس وقلي if الروم أنت بدل استعماله دي سبيس وجر بنانك هو بح هذا سبيس جرنه قداها صودا مد default يا جرا مرك أو نيفا معناه حد يسون ويلي بحين
so never inta badan waxaa ka fiican inaadan qorin koodkan oo show action bar anaga waxaa leenahay markii fi room salaam so kan hadda marka banaanku naga aadaa fiirino inta noo imaanaa okay wakas search laakiin weli sii shaqeynaa haddaad taabato item isku kamid yahay item hebel haltaa tuu leeyahay applicationka qaar waxay sameeyaan icon ay ka dhigaan hadduu mar banaanka jirabo icon ay ka dhigaan calaamad searchinka ama waxa magaca markaas u dhigmo oo icon la sameynaa so iconkaas laga dhigaa searchinka tusaalahaan oo kale icon u sameyno sida iconada loogu dhex sameeyo android hore usoo aragnay maano tusaalahaan controlka tagayna icon kusoo darsanaa oo searchin ah controlka imaana dan waxaa leeyahay new vector asset haddaa u baahantaa banaanka waa ka keeni kartaa sawirka iyo waxaa u baahanta laakiin midka waxaa iska isticmaala oo billiga ku ah inta waxaan ka raadinayaa markaa searchdaas ugu qora iconiska kusoo baxaya marka oo searchinka iyo kuwa kale way badan yihiin so midaan ka dooranaa kalarkaa bedelaa kalarkaana waan ka dhiganaa magaca ula baxaa ya mati noo dhahay searchinkaasi qalda qorena searchinku inta saa u qoray masada engineer kanaa ka dooranaa tusaalahaan oo kale dan waxaa leeyahay okay hadda waa madow so waxaa leeyahay caddaan iga dhig magac meelkaas ugu sareeya tusaalahaan oo kale waxaa leeyahay search icon search underscore ic tusaalahaan weynkiisa 100 aan ka dhigaa sizeka okay finish icons way badiyi marka midka ka dhex samaysan kartaa city kan xataa waa heleynaa soo icon ah laakiin had city gudaha noogu jiraa kan bisaa banaanka naga jiro waxaan joogaa faylkii main menuga ah qayb searchka marka waxaan ku daraa another attribute la yihahdo iconkan adbaadku kaa rabaa soo baadka sawirka meeshuu yaalaa sheegaysaa simple icon tusaale haddii itemka uu gudaha ku jiro ee labada attribute oo kulmiyo waxaa power sareey kan titleka soo muuqanaya hadduu banaanka jirana uu wadan labadan kulmiyo waxaa power sareeyo iconka so waxaa laga yaaba marka hadda haddaan gudaha ku celin kan aa dhahno never haddaan dhahno hadda icon oo isticmaalaa fiiri markaa gudaha ku celin laakiin wuxuu noqonaa magac titleka soo baxa so shayga marka itemka uu labadaba uu leeyahay hadduu gudaha ku jiro titleka isticmaalaa haddii banaanka loo bixin iconka isticmaala كان يقول احنا يا اوكي ما دام اكسل waxaan ka bedelay wuxuu u baahan yahay restart dimale labadan waxa waa fiiri meesha waxa yaala laba xabo inta badan markii oo mar aaran gareyso kan wuxuu noqonaa run application caadi u ran gareynaa kan waxaa waa apply change salaam qol meel yar wax ka bedeshay oo aanan xml file ahayn haddii file xml wax ka bedeshid kana u baahnaan doonta hadda kana ku that's why we diidayo kan apply change macnaha waxa waa variable oo kale qiimaha ku jira waxyar ay ka bedeshid oo kale kana ku dhufanay woona ka fududiya macnaha iyuu soo kaca kaas okay sidaas icon-kan ugu soo muuqday isku saaraya 2 3 4 icon soo bixin karnaa ama 4 menus aan banaanka keeni karnaa weli siis u shaqeynaa hadii taatu wuxuu leeyahay item hebel aan option menu ali farqiga u dhaxeeya waxa laga yaabaa option menu iyo context menu farqiga u dhaxeeya in badan inaa imtixaanka ku aragtid so option menu waxa leenahay wuxuu soo muujiyaa information la xiriira
activity أما form كمركز لتاجين halka context menu-ga oo soo muujiya asina information la xiriira ama specific view macnaha waxa ka hadlaya waa control caadi ah ama image ama wax kasta oo noqon kara markaas okay context menu waa fiirinaynaa marka context menu saddexdan wuu leeyahay laakiin only magacyada isba bedelayaan meel walba option ah context ku bedelayaan tusaalahaan oo kale methodka aan override ku sameynayaan on create options meeshu ka yahay context adena on options item selected on context item selected hal step oo afraad kan uu dheeriyahay soo galay oo ah inaan register gareyno view ama controlka inaan u register gareyno inuu context isticmaalo context menu Here stepka koowaad waxaan ka dhigaynaa zoom ku la diidiyaa saadaan ku wadayna step koowaad waxaan leenahay fail aan sameysano ugu tala galnay salaano kale meeshaan waxaan rabaa designka meeshaan text view ayaa la miyaa sawirka meelaan ka soo qaadana
okay control kan soo darso sawirka waxaa rabaa markaan qabto cabaarhayo inuu pop up isoo baxo oo menu ah context menu ah so img aan u bixinaa idgiis khalaas waxaan tegi doonaa marka menuga qaybtan geeska ah right click new then waxaan sameynaa menu resource files team gadaal waxyar image menu oo bixinta small meesha capital lama ogolo image menu okay items meesha ku list gareyna waxaan rabaa inuu noqdo only warkayga dhaaf ayay iska bax qofkii baxa iska baxaya fasaxati qofkii baxaya bax atani saxta ma jiro gambi okay waxaa leenahay kasoo qaado kale share id waxaa leenahay image share tusalaan oo kale laba xable aan sameynaa saddex tusalaan oo kale crop aan ku darsano banaanka ma iska aad saaca ninka hadlaya banaanka iska aad okay labada xabo tusalaan oo kale sawirka markii la taabto oo lahaay waxaa rabaa pop up yar inuu soo baxo oo labadaas item ku isticmaalayeen dana mid ka rabaan ka dooran ka step-ka koowaad waxaa fail aan samaysano waan samaysanay step-ka labaad wuxuu la mid yahay kii hore oo kale meesha hadda waxaan joogaa main menu ya main activity sida option u sameeyeen oo kale meeshaan optionka bis aan context ku bedelayna laakiin kan ma taabanayno mid kale aan ku jiro oo la on create saan soo kormarinayo context menu oo dooranayna hadda code-kii isla sidii aan qorayna fiir markaan waa return marna waa iska caadi markuu caadi ah hoostiisa ku shaqeeyo markuu return yaana korkiisa ku qor code-kaanu intaan ah haddana mar labaad qorayna bas get menu inflate from then waxaan sheegaynaa failkii hadda aan samaysanay img menu object laga rabo weli waa kana way la socdaa عندنا قاعد بقول عرب صاروا simple خلاص سيدا كانوا استعمال هذا on option item selected أنا قرينا كود كي كله حاليا مش option بس حق بدلنا on context item selected دورة هذا له menus كان يكون جرا get item ID اللي هذا ID ده أنا سمين أقرب كي شركة أقرنه سيدا نقول أنت أنا كسوق بيسنة سمال ديك القر وش waxaan bedelaynaa oo kaliya meeshaan ID-yada marka aniga waxaan raadinaynaa img share iyo img crop dan waxaan leenahay share-ka la doortay danne img crop waxaan ID waa oo failkan kusoo sameeyey qofkii wax yar mashquulay kuwaan ID-yada waxaan ku sameynaa failkii hadda aan sameynayn oo image menu ah this one meelaana ku sameynaa okay kan inta imaanina xaaleynay labada step noo sameeyo oo ah labada midna offride ku sameeyno step 3 afraad uu leeyahay uu dheeryahay kii kale oo ah inaan u register gareyno for menu in u register gareyno view-ga aan ugu talagalnay inuu yeeshto soo hadda view diyaarsana waa image view so image view-ga waxa uu diiwaan gelinaa marka inuu isticmaalo context menu sidee ko marka hore image-ka keen on create kor aan tagaynaa function keena on create ka oo form ka ah midkaan form soo loo gareynaa design sawirka meesha uu saaray dan waxaan isku xireynaa sawirkeena soo qabsan horta marka hore image view img equal find view by id ama umar id ku bixi maxaa ah image leedahay soo design ka marka tagtid waa midkaan id ga aan siinay image get menu context main activity noogu soo celi diiwaangeli marka function waxaa la oo jir la yiraahdo register for context waak register for context hal parameter oo qaata waa view waa isna soo marka xalina waxaan u diiwaangelinaynaa img ga inuu isticmaalo context menu خلاص step afraad
rangaray marka tijaabinayna ma recording nooguma jiraan okay sidaas aan dooranayna long click kaliya maaha soo share leedahay then oo arkaysa taabo ay cabaar hay click marka soo baxa meelaha la meesha muuska ka haysido ka soo baxa عشر كورميا أو كنترول كان ليستي أنت يا واحد مقصود بنيجي معنا يا دلود أنا أو ليستي واحد مقصود بنيجي هنا وار بس هذا كاتوري أنا إيكاد مركب مينك آوي كود كآوي Okay. Kau sama read all. While move to next. Sana. Kan mark sana bas obadiya loop ko wareega xabad u dambayso mar walba sana. Waxa sameynayna fiir listiga soo ma haysano list. وريها كود ده ما كنت كنا ليستي مش عم كنا ديزاين كانوا سهرين ليستيجا ID ما ليستي بس ما يسهل so ليستيجا بس بندقينا ماركت سلام أنت انكسر so حاليا مارك فكش كان فويد كا 10 كورة فيها وايلا سوري ماشي عن فويد كا حكدينا إنه إليو واحد سيستم كده هذا بس كله سوى آخرين تسألان أنت إيمانه عليه فكش كان هالإليو سي إلي so هذا هو فويد ده يتابع شو حكدينا واحد أو إلينا أو كورسل كا so سي إلي عليه مال على ماشي كاستعمال المركة أريجا سلو إلي دونا أريجا سليت كسو بندقينا ورياس ونمي وبناك بس كده ما يدي يقول جنيه ما يقول جنتين أنا ما بدي هستيم ماسك بحلان أوكي كنترول كاسم إنسان أنا أمرك ليست فيو عشان كراونا قناة علمه أو إيركنيست ما إلا سوري my list upload id dot my list بير ليستي حتى global كريك سي عن function وقدر يجنو مركز سولود كرينيما glass based on glass كريم معناه glass كو إن لك عكس كريم كريستي كان خلاص وحنوبها هنا في ليست عادي وكنترول عادي وديزاين كانوا صار يا زوج مكسر اوكي وحن إيمانه من خيبتان هوسه فكشن كان لود كم حقوق بناي this one بيتي ريد كان مركز تابته فكشن كيو عصمه اوكي فكشن كمركو معه فكشن ككرسل سو علينا كو قبس هذا المره لبعد كرسل كسي كو قبس هيه كدب جاي جراي هدي افتا wax la soo helay database kadib wax laga soo helay macnaheedu waxa waaye waxa database laga soo aqriyo hadii la tiriyo haduu ka weynaado 0 dana markaas aan bilaabeynaa loop kan inaan isticmaalo c.move to next okay dana xaram marka listiga ku attach gareyno laakiin marka hore cursor waa ina array u bedelnaa oo item array list ah oo dhamaan wixii items ka soo saarnaa meesha xaleena array list items equal new array list laakiin loopka korki banaankiisa ah adiga mar kasta oo loopku wareega array aan sameyn doonaa anaga marano dafasta in la sameeyo bisa u baahnaa kadib inta imaanayna xaleena items ku waxaad ku shubtaa wixii database ka imaaday database wax ka imaaday waxa ku jiraan c.get string leena marka ما أقول ما سوى أقرنين أول ما داني أصوف فيرينو كولوم بابا كولوم ما سوى أقرنين أيديا يستودنتي كنام كيسا so كان 0 نقنا أخرى كان 1 نقنا هن هذا main كيجا حاليا حوبانا قلت كمقعيد كجران بس number 1 لأنه مركو رامي item كاس ugu dambeyn
my listigayga waxaan leeyahay marka set adapter adapterku set garee new area adapter saddex parameter oo qaataa parameterka koowaad waa context galaaska markaas aan joogno this parameterka labaad wuxuu noqonayaa designka itemska ka soo muuqanaya designka ay qaadan lahaayeen r.layout laakiin waxaan ka isticmaalaynaa midka android building ku ah android.r.layout symbol list item design kana isticmaalaynaa parameter saddexaad waxaa waa xogta xagee ku jirtaa xogta wuxuu ku jiraa itemskan khalaas dan hadaaran gareyno oo batoonkaas readka la riixo waxaa rabnaa dhammaan inuu soo load garayso xogtaas oo list view ka soo muuqdo sorry waa ilaa maalin hore dhulkan ku yar yaa maleynaya okay read markaan riixno read xataa inaan riixno maal waxaa loo inuu si toos u soo baxo hadda jida maxamed leyla iyo cabdikariin haddii aan qof kala diiwaan gelino xasan xuseen nuur salaam oo kale safe isla marka xataa inuu fresh sameeyaa la rabaa waa samayn karaa saas hadda dhaad safe loo laabas reload aan leenahay reload maxaa dhaca read maano kan good kind of hoos noo gala laga yaabaa sorry hoos oo galay meeshaan ugu yar intaan sawirka haysto soo sanad xasan xanaan xasan iyo xasan xuseen ka waa kala raadineen kana dhaqaaj ya okay in automatic in hor laga arko markaas anaga logic qorneen waxa sameeynayna waxa u baahannahay fiiris sida sage iftaax waa kana markii la save gareeyo inaan int refresh ka dhahno int inaan function refresh aan waxa sameeynaa marka code ka laba jeer ma qori karno code kana qabaneena waraa warkayga dhaafooy code ka button ka read ka ah function ka dhigaa function inta ku igay ilaa iyo ifta inta soo ma cut ilaa iyo function ka inta ifta iyo wixna waa qaaday waraa gams button ka markii la taabto hadda waa ever meelahan imaana fiiri function sameysana oo markasta aan wacan karo function shaqadiisa waxaan ka dhigaa waxa leeyahay void waxa leenahay function magaciisa show data to list view function ka shaqadiisa waxa waa data inuu list view ka soo muujiyo so code kita bast kara marka wujida waxa sameeyna marka hadii buttonkii oo read ka ay click la siiyo function kii waxa hadda aan sameeyay waxa leeyahay show all that markii la save gareeyane waa waxa hadda mar kale show that laba jeer hal mar qoro code ka function ka dhigtay laba jeer aan wacana markii buttonka read la ka wacana buttonka read ka taa mu baahan salaano waxa sameyn karnaa buttonka inta wada ku cuno نوريرين si toos ah formka markuu soo kacayo formka markuu soo kacayo waxaan intaas ka dhiganayna marka خلاص oo waxaan rabnaa markii activity ka soo kacayo in wixii database ku jira si arki karno intaana button riixin button riixtaankiisa naga dhaafo okay dan waxa leena refresh waxaan dhan waxa ku qorwaa inside on create markii laga reebo functionska so function kale ma dhex geliyo كه كه ما دام انت لك استعمالها فوق ذا اسكالينا بس هذا ما كسو كعجا اوريدي محمد iyo ليلى iyo عبد الكريم iyo kuwi kale wataageen اكو انا هذا قف اكو دريا صلانو كله زهره علي عدود صلانو كله هذا تايم سيف دان وين انت سو gashaa اوكي معك سنة فكشن كي أو مركز سيف قريب كذي فكشن كي أو أنا صار فرش سنة ما سؤال